السلام عليكم سودو. maanta waxaan ka hadlaynaa jaceyl khaasatan sida loo muujiyo. bini'aadamka sidiisa waa complex, in la fahmo aad ayay u adag tahay. saynisyahanno badan waxay isku dayeen maskaxda inay fahmaan. maskaxda buugaag badana laga qoray, haddana wax badan lagama yaqaano. jaceylka oo kale ilaa hadda waa lagu muransan yahay, ma dareen baa, ma go-aan la qaataa, ma dabeecada. si walbo aad u qeexdid markaad leedahay waxbaan jeclahay. jaceylkan uu noocyo badan yahay. hal qaab oo midka romantiga ama lamaanaha kaas kaliya kama hadlayno. jaceyl guud ahaan, midka saaxiibtinimo, midka waalid, midka walaal iyo midka ashyaa aad u haysidba. haddaba markaad leedahay waxbaan jeclahay, marka si walba ay ahaato dareenkaas oo kaasoo go-ay ama sidaad u fikiraysid, sidee loo muujin karaa? qoraal la yiraahdo Dr. Gary Chapman wuxuu kaga hadlay buuggiisa 5 luuqadood oo jaceyl dadka ay ku hadlaan. isaga wuxuu leeyahay marka qofba mid buu ku hadlaa, mid baa koow u ah oo luuqad ah, laakiin aniga waxaa u isticmaali doonaa 5 qaabood oo loo muujin karo jaceylkaaga. anu gudagalo midda koowaad waa adeeg, act of service. inaad howl u qabatid, qofka aad caawisid. u adeegitaankaas qofkaas waxay muujinaysaa jaceylkaaga. tan labaad quality time, in waqti aad la qaadatid qofkan. waxyaabaha ugu muhiimsan oo hantida haysatid waxaa ka mid ah waqtigaaga ka mid ah. waqtigaaga qofka inaad siisid waxay taas caddaynaysaa in jiritaankaaga qofkan aad siinaysid. qofkan inaad waqtigaa siisid oo la xiriirtid. waxaa jirto oraah oo carabiya waxay dhahaysaa alcishqu daa'un qaatilun dawaa'uhu litisaali. jaceylka waa cudur dilaa ah, waxaana u daawo ah xiriirka, yani in la wada xiriiro, isku soo dhawaado, lis xiriiriyo. ka saddexaad gifti ama hadiyad in la siiyo qofkan, inaad wax siisid, waxaad haysatid inaad wax ka bixisid oo siisid. taasna waa qaab kale oo loo muujiyo jaceylka. tan afaraad wuxuu leeyahay physical touch ama taabashada jirka, in gacanta la isgeliyo ama in hab laysa siiyo ama dhunkashada. tan shanaad oo jaceylka loo muujiyo waa hadalka wanaagsan, hadal qurxoon, ammaan iyo si wanaagsan qofkaad ula hadashidba waxay muujinaysaa jaceylkaaga iyo dareenkaaga ku aadan qofkan. shantaas qofkaad la xiriiraysid, midda uu aad u daneeyo aad u isticmaali kartaa, ama waa iskugu dari kartaa, ama midba meeshay ku habboon tahay ayaad siin kartaa. intaas waxay ahaayeen 5 qaabood oo loo muujin karo jaceylkaaga. haddaa ka heshay muuqaalkan like saar, channelkan kusoo biir. assalaamu calaykum waraxmatullah.